السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبو channel كيغا Maya Beauty and هدا كل عصب تاي channel كيغا اي subscribe غري ان شاء الله. هدا returning subscriber تاي او ايغو سو نقونيسيد هدا subscriber تيد بو already ايغو سو نقونيسيد and سو دبو and maanta waxaan ka hadlayaa face mask oo clay ah and face mask oo la dhaho detoxifying oo lagu talagalay in la detox, you know, wejigu detox buu baahan yahay. Jirka ay mostly dadku bodiga ay detoxify garayaan, laakiin wejiga waa u baahan inaan detox siino. And maxaan ka wadaa by detoxify your skin? Detoxify your skin waxaan ka wadaa product yaal baa jirta oo u baahan yahay jirku. Imika for example face mask badan oo face mask horta noocyo badan buu kala leeyahay. Wuxuu u leeyahayna noocyo badan oo skin type ah, laakiin face maska waxaa jirta mid lagu talagalay amba aan, you know, hadaan doonay inaan wejigayga hydration amba kusoo celiyo, you know, hadduu engeg yahay aan doonana kusoo celiyo siduu awal ahaa amba hydration aan geliyo. Waxaan markaa dooranayaa clay amba face mask lagu talagalay hydration inuu siiyo marka hadduu wejiga qaleyl yahay. Waxaa jirta face mask lagu talagalay wejiga dadka qaleylka. Marka detoxifying waxa weeyaan markaste imika for example qofka hadduu makeup badan marsado amba even generally hadduu dibadda u baxo oo dee, you know, wejiga waxaa dul yaala you know, airka factoryga amba pollutionka amba waxaasoo dhan dibadda uskaga dul fuulaya wejiga ayaa u marsanaysaa. Marka detoxifying marka uskagii wuu soo saaraya, yes, laakiin wejigii buu nadiifinayaa as well. Si fiican buu u nadiifinayaa, you know, uskagii oo dhan buu kusoo saarayaa. Marka productka aan u isticmaalo oo igu cusub on aad uga helay aan arkay difference, isbedel weyn baan arkay markaan marsaday. waxa weeyaan productkan xaggan baan taswiirta nagu tusi doonaa, laakiin productka waa kan waxaa la dhahaa pink clay baa la dhahaa. Clayna waxa weeye af Soomaali waxa weeyaan doobo, marka pink clay baa la dhahaa. Magaca ayaa loo saaray clay. Clay marka waxay ka wadaan videoga xagga nagu tusi doonaa anoo marsanaya, laakiin waxa weeyaan markaa marsatid anigu horta waxaan ku joogay 10 ilaa 15 minute baan ku joogay. Wuxuu igu degay, you know, aad buu igu degay wejiga, maca wejigii waan dhaqaajin kari waayay, waa xanuun bay noqotay. Laakiin markii aan iska meeray waxaan arkay nuur wejigayga maasha Allah. Waxaan ka arkay inuu wax badan iga baabiyey amba impuritieskii uskagii buu soo saaray. Marka, you know, stepskii kale waan dhameeyay markii dambana, laakiin productkan aad buu u fiican yahay. Saa u arkaysiinba videoga aan marsanayo waxaa la siiyaa marka productkana waxaa la siiyaa £7.99, £8 ingiriiska waa pound, marka £8 baa la siiyaa. ku kalaan sheegsaday oo L'Oreal ah oo maalintii la tusi doono ka uu ka raqiisnaa, laakiin productkan aad buu u fiican yahay baan, you know, rajeynayaa. Anigu horta waan arkay difference-ka marka saas uu eegyahay pink clay wejigana markaa marsid aad buu kugu degayaa oo uskagii oo dhan buu soo nuugayaa. Marka insha Allah intaas ma maanta doonayay inaan ii sheego aan igu soo kordhiyo. Haddaa ka hesheen videogan like saar iyo subscribe garee. More skincare baan ka hadli doonaa iyo videoyaal cusub baan ii soo wadaa insha Allah. subscribe gareeya, like gareeya, comments na iga bixiya haddaa ka hesheen videogan. wayno insha Allah marka dambe aan video sameeyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.